puntland iyo deegaano badan oo hoos yimaada xareed waxa uu tilmaamay maamulka shirkadaha isgaarsiinta inay weydiiyeen sababaha rasmiga ah ee dhaliyay goynta isgaarsiinta ayna u sheegeen in lagu jaray amar ka yimid xagga maamulka waa sida uu hadalka u dhigay waxaana uu muujiyay shaki ku saabsan isfaham darrada ka dhex taagnayd puntland iyo siyaasiyiinta deegaanadaasi ka soo jeeda oo maamul halkaasi dhawaan uga dhawaaqay wariye axmed soomaali ayaa isna telefoonka ku wareystay waxaana marka ugu horreysa uu weydiiyey waxa uu ka og yahay jiritaanka isgaarsiinta deegaanadaasi caluula iyo baargaal waxaana uu ku jawaabay horta marka hore way salaamayaa degmadu muddo waxa weeye qaaqul baa ka jiray oo ku saabsanaa maamul meesha state-kaas asaasay meesha iska asaasay degmadu marka maamulka iyo maamulka puntland baan meeraha safgaran arrintaas kadib waxaan maqlay habeen horeeto iyo isgaarsiintii laga gooyay baargaal iyo meesha la yidhaahdo caluula anigu halka ku sugan sida maqaalka ugu soo gaaray maxay tahay marka in sababta isgaarsiinta waa arrin la isweydiin karaa waa meelo badan baa puntland kolley dagaalo ka soo socdeen lagama goyn ama lagama goyn jirin meeshaasna waa meel dhowr jeer weeyaan kolley laga gooyey waxaa lagu filayaa kolley waa arrin maamul oo xagga isgaarsiinta arrimaha isgaarsiinta socodkooda la xiriiro saan dalinayaa sidaa weeya idinku maxaad ka ogtiin marka isgaarsiintaasi la gooyey ma isgaarsiin si caadi ah u go'day oo siyaabihii hore ay u go'i jirtay oo kale u go'day miya mise waa mid lagu talagalay oo la gooyey waa mid la gooyey waa mid amar ku bixiya maamulka puntland baa amar ku bixiyey say shirkadu tiri maamulka puntland baa amarka bixiyey afka shirkadu lagu tiri markaan maxaa goysa waxay tiri amar cad baa nala siiyey saasaanu ku joojinay idinka ma kala hadasheen marka arrintan maamulka puntland maya odayaal baa shirkada kala hadlay waxaa la yidhahdeen ganacsi baa la qabnay maalinna la goyn maayo maalinna la goyn maayo maalinna la sii dayn maayo waxa weeyaan xaggii ganacsiga xiriirku halkeena ha ku ekaado la yidhahdo odayaal baa kolley kala xiriira arrinta ayaga xagga shirkada laakiin maamulka cid kala xiriirta ma jiro maamulkan aad ka dhawaajisay in looga dhawaaqay dhanka bariga puntland ee gobolkan bari sida baargaal iyo caluula muxuu yahay bal isagu faahfaahin naga siiya runtii waxa weeyaan marka arrinta iyada faahfaahkaasi anu duqi degmada caluula baan ahaa waqti ka hor oo waxa weeyaan markii waxqabadkii ama hirgelintii nidaamkii dowlada meesha dhinac maamulga dhinac sheegay ka waayo ah muddo hadda badan oo dhowr iyo toban bilood banaankaasaan ka joogay mas-uuliin baan ku jiray nimada kale waxa weeyaan kolley markii bulshada meesha joogta ay wax badan tirsatay sida caafimaad la-aan waxbarasho la-aan isgaarsiin la-aan biyo la-aan dowla waxa la yidhaahdo aniguna in badan aan ugu qaynayo maamulka oo meesha iyadoo 20 askari markaa ku sugnayn oo meesha maamulka nidaamka laga hirgeliyo dabeedna maamulka sidara laga qaadan waayey wasalaha darsadaan baan markaa sheekay markaa waxay yidhaahdeen meesha maamul cusub baan ka dhisaynaa waana meel puntland maamulka puntland ay baylaha ku heleen waxaan ognahay baargaal iyo caluula iyo bariga gobolkan bari ee dhulka buuraleyda in puntland uu ka tirsan yahay muxuu yahay maamulkan iminka laga hirgelinayo deegaanadaas maamulka hadda kale dadka jooga khusaysaa ama kuwa mawjooda horboodayo magaca hooyadaa la baxay bulshadaasay siiyeen bulshadaasaa la qaadatay waxa weeyaan markii aan mawjooda xanka hoose ama waxaweydiin waxa weeye daryeelka danahooda ama sida arrimaha horumarinta arrimaha bulshada xiriir mawjooda waxqabad iyo xiriir nidaam dowliya markii meeshii ilaa ay waxba ka gaarso gaari waayo puntland baan ku yidhi ayaa dadkii mawjooda dhismooda u noqday marka yaa horkacaya maamulkan waxaa horboodayo mawjooda mas-uuliyadda haysta ninka la yidhaahdo faarax daxjo madaxweyne uu yahay mas-uuliyadda hogaaminta maamulka usaga weya waxgaradka ku nool deegaanada caluula baargaal iyo dhanka bariga ee gobolkan bari iyagu ma ku raacsan yihiin madaxweynahaasi faarax daxjoog in puntland maamul ka madax banaan laga sameeyo deegaanadaas حقيقة لا أعرف أم هو هذا قال كره حديثا بسوي ماشي جوك سوى شو هذاك موجود راجين كره موجود واحد بسوي كشيء كره موجود جواب كسوي كره لا رد أو حقيقة سويته تذكر بسوي بيان كاسية موجود راجين كره
وكيسين ما دام أي حين دوكتا وحضر دوكتا بدو تقول هو إمام كهرتو ويديك الله يسلمه waxaan ugu maqaala ah hadii isgaarsiintii la gooyay in ciidamo loo diray oo Puntland ka tirsan deegaanada si amniga ay u soo sugaan ta iyada ah maxaa wara idinka ka haysan والله أنت أيها sida u maqashay waxa taalo maqlay laakiin kulli hada kuwaas wuxuu awaamil ciidan bay haystaan وكم هذول برانين هذول كل الوالد سألوا هي لكن هذا وابدين مدين وحشي مية صار كماشين كانوا ليش صاروا كم غيسوا marka sidee adi xaaladan hadda dhacaysa kuula muuqataa waay wax yar muuqataa runtii marka hayo kala yaacida bulleed yani waa dhibaato لكن كوا مركا لو حوال بار maamulka bulleed hadii ka tirsanaa wasaaradda arrimaha hore kuwan hadda kulli waa degmadii kulli xanteedu loo يعني حتى شيء إنسان وهم ويا ما يشتمون وياه وحمار كلا جوجوت برا من هذه ينفع كجر ويديك بالكوا بورته marka ugu dambeyntii maxaa talaad والله عن قلنا كوس واحد سبحان الله وكي يبغى ودين ينوان كذي وهذا وحجر xareed ciise cumar duqii hore degmada Caalula ayuu kaasi ahaa wariye Axmed Soomaali ayuu telefoonka ugu waramayay